dhab ahaantii waa dhammaad aan wanaagsanayn oo aad u fool xun waxaan idiin sheegi doonaa. bal waxa sawirataa daawade adigoo maqlaya codadka iyo sanqadha asxaabtaadii aadka isugu dhaweydeen iyagoo ku ciyaaraya agtaada oo kubad ciyaaraya, adiguna waqtigaasaa tahay mid diban oo la dagaalamaya dhimashada iyo geerida. taasi waxay ahayd dhammaadka ama daqiiqadihii ugu dambeeyey nolosha wiilkan oo lagu magacaabo Kendrick Johnson. muuqaalkeena maanta ayaan idinkula wadaagi doonaa qisadiisa oo faahfaahsan iyo waxaan wanaagsanayn ee uu la kulmay wiilkaasi. waxay ahayd maalin caadi oo la mida maalmaha caadiga. iskuul ku yaala dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Laundries High School. iskuulkaasi wuxuu ku sugnaa xaaladiisii caadiga ahayd. ardaydii dhigan jirtay iskuulkaasina qaarkood waxay ahaayeen qaar wada sheekaysanaya, qaarkood waxbay iska cunayeen, qaar kalena way kaftamayeen oo way qosqoslayeen. qaar kale oo ka mid a ardaydiina waxay ciyaarayeen kubadda kolayga, iyagoo aan ogeyn gebi ahaanba in saaxiibkoodii ay aadka isugu dhawaayeen uu la dagaalamayo dhimashada iyo geerida oo isku dayay inuu naftiisa badbaadiyo. maalintaas wiilkan oo wiilka ay ku saabsan tahay qisadeena maanta oo lagu magacaabo Kendrick Johnson ayaa wuxuu ka soo habsaamay gurigoodii. markii uu soo daahay ee waqtigiina uu socday ee la gaadhay habeennimadkii, hooyadii way xanaaqday waxayna u diyaargarowday in marka wiilkeedu uu guriga ku soo laabto inay canaanato oo hadalla aad u adag ay ku canaanato. adeena uga xanaaqday hooyadii in wiilkeedii aanu ku soo laaban oo uu ka soo daahay gurigii. laakiin waqti yar kadib hooyadii waxay bilowday inay soo wacday wiilkeeda asxaabtiisii. dhammaan asxaabtiisiina way wacday oo hal midna kamay tegin, iyadoo weydiinaysa in wiilkeedii Kendrick ay israaceen ama ay wada joogaan hadda. laakiin natiijadu waxay ahayd dhammaan dadkaas ay soo wacday hooyadii muu jirin hal mid oo ka mid a oo arkay wiilkeedii Kendrick. waqtigaasna hooyadii aadka u xanaaqsanayd markii hore way isbedeshay, waxayna ka timi hooyo doonaysa inay canaanato wiilkeeda oo ay ciqaabto, oo waxay isu bedeshay hooyo u cabsanaysa oo aad ugu welwelsan inankeedii meesha uu aaday ee uu ku maqan yahay saacadan dambe. hooyadiina si degdeg ay u soo dhaqaaqday oo waxay aaday iskuulkii wiilkeedu uu dhigan jiray ee uu aaday subaxii maalintaas. waxayna baadhbaadhay meeshii baarkinka ahayd ee iskuulkaasi uu lahaa, laakiin may helin wax raadi oo wiilkeedii uu leeyahay. intaa kadib waxay u tagtay gabadh shaqaale ka ahayd iskuulkaas oo ka shaqaynaysay nadiifinta. gabadhaasina waxay ku tiri hooyadii, saacaddani waa saacad dambe oo iskuulka oo dhani waa cillo, cid joogtaana ma jirto gebi ahaanba, ha ahaadaan macallimiintii ama ha ahaadaan ardaydii midna. saacaddu waxay maraysay waqtigaas 12:00 habeenimo oo waxay ahayd saq dhexe. waqtigaasna dabcan waa waqti ay dhammaatay maalintii hore, maalintii dambena aanay weli bilaaban. intaa kadib hooyadii way soo baxday oo waxay si degdeg u soo aaday saldhiggii ciidanka. ciidankiina wixii koobaad ay sameeyeen wuxuu ahaa waxay waceen cisbitaaladii ka ag dhowaa iskuulkaas oo waxay weydiiyeen inuu joogo cisbitaalka wiilkii lagu magacaabayay Kendrick, iyagoo isla waxaa laga yaabaa in wiilka ay wax ku dhaceen oo la geeyey cisbitaaladaas mid ka mid ah. laakiin arrinkaasi wax faa'iida muu yeelan oo wiilkii lagama helin cisbitaaladii meeshaas ka ag dhowaa gebi ahaanba. sidoo kale waxaa la waraystay Kendrick asxaabtiisii ay iskuulka wada dhigan jireen, waxaana la weydiiyey markii ugu dambeysay ay arkeen wiilkaasi marka ay ahayd. iyaguna waxay sheegeen in aanay ku arag wiilkaas waqtiga ay ciyaarayeen kubadda kolayga oo ay deedayeen waqtigaas meel uu ka baxayna ay waayeen, kadibna keligood ayaa iska ciyaaray kubaddii. intaa kadibna sidoo kale may ku arag wiilkaasi iskuulka dhexdiisii meel ka mid ah. waqtigaasna waxaa loo diiwaangeliyey Kendrick in si rasmiya loo waayey. maalintii ku xigtay maalintaasna markii la furay iskuulkii waxaa la baadhay dhammaan waxyaaba ay duubeen kamarooyinkii halkaas ku yaalay si halkaas looga eega in Kendrick uu ka tegay iskuulka waqti hore isagoo aan cidna u sheegin arrinkaas. laakiin halkaas waxaa laga arkay in wiilkaasi uu joogay iskuulka intii u dhexaysay subaxii ilaa duhurkii wixii ka dambeeyeyna muu soo xaadireen xiisadihii la dhiganayay. intaas kadib ciidankii waxay ahaayeen qaar ku wareeray arrinka wiilkaas oo garan waayey waxay sameeyaan iyo meel ay ka bilaabaan baadhitaanada, sababtoo ah xitaa inuu ka baxsado wiilkaasi gurigooda oo meel kale uu baxsado waxay ahayd arrin aan caqliga lahayn. Kendrickna muu ahayn wiilasha noocaas ee arrintaasi ay ka suurtowdo. maalintii ku xigtay maalintii la waayey Kendrick, saacaddu markay ahayd 10:00 subaxnimo meelahaas, ardaydii waxay aadeen meeshii lagu tababarinayay ama jiimkii iskuulkaas ku yaalay oo lagu magacaabayay All Gym. arday badan ayaa halkaas joogtay. meeshaas lagu tababarta meel ka mid a oo ahayd meel geesana, roogag waaweyn ayaa yaalay kuwaasoo inta la duuduubay lagu tiirtiiriyey halkaas. inta badanna ardayda ayaa dusha kaga fadhiisan jirtay roogagaas oo ku dul nasan jiray marka la gaadho waqtiga nasashada.
ama marka ay soo ciyaaraan ardaydu ay soo daalaan halkaas ay soo fuuli jireen oo ay ku dulnasan jireen. waxaa jirtay gabadh ka mid ahayd ardaydii iskuulkaas dhigan jirtay iyo walaasheed oo halkaas soo fadhiistay maalintaas. waqtigaasna waxaa halkaas ka dhacay arrin la yaab iyo kadis ku ahaa gabadhaas iyo walaasheed, sababtoo ah mid ka mid a roogagaas dhexdiisii waxay ku arkeen lug bini'aadan oo ku dhex jirta halkaas. lugahaasina waxay xidhnaayeen sharabaado oo hoos ayay u foorareen. marka ay arkeen labadaas gabdhood ee walaalaha arrinkaas dabcan aad ayay u naxeen, waxayna u dhaqaaqeen si degdega dhankii maamulkii iskuulka si ay u soo wargeliyaan waxaan cabsida badan ee ay arkeen. markii maamulkii iskuulku uu meesha yimina wuxuu bilaabay inuu soo foorariyo ama dhulka uu soo dhiga roogagii si uu bal u eega gudahooda waxa ku jira. halkaasna wuxuu ku arkay wixii ay sheegayeen gabdhuhu oo ahaa inuu jiro wiil halkaas yaallo oo ku dhex jira mid ka mid a roogagaas waaweyn. markii la eegay wadnihiisu inuu shaqaynayo uu garaacmayana waxaa caddaatay in wiilkaasi aanuu noolayn oo uu dhintay. macalinkiina wuxuu ka kaxeeyey ardaydii meeshii lagu tababaranayay ee lagu ciyaarayay kubadda oo uu cileeyey meeshii, wuxuuna ugu yeedhay goobtii ciidankii. dhab ahaantii sida laga yaabay inaad fahanteen wiilka halkaas laga helay isagoo foorara wuxuu ahaa wiilkii la weysanaa ee lagu magacaabayay Kendrick. laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeye, maxaa ku dhacay wiilkaas lagu magacaabo Kendrick? sidee baanu ku yimi oo ku soo gaadhay meeshan? arrinka dhacay wuxuu ahaa Kendrick maalintaas la waayey markii lagu jiray xilligii break time-ka ama nus saacaha. wuxuu soo maray wiilkaas idaaradii iskuulka isagoo ku socda meeshii lagu tababaranayay ama jiimkii si uu halkaas uga soo qaato kabihiisii uu ku ciyaari lahaa basketboolsha. kamarooyinkii halkaas ku yaalayna waxay caddeeyeen arrinkaas oo Kendrick wuxuu ka soo muuqday kamarooyinkii halkaas ku yaalay isagoo ku socda goobtii tababarka uu ka soo qaadan lahaa kabaha. Kendrickna wuxuu la wadaagi jiray kabahaas uu kubadda ku ciyaari jiray mid ka mid a wiilasha ay saaxiibka ahaayeen si ay u kala dhigtaan kabahooda oo aanay hal mar wada isticmaalin kabahooda. arrinkaasina wuxuu ahaa arrin ay samayn jireen ardayda inta badan oo marka ardaygu uu soo ciyaaro ciyaartee uu ka soo baxo kabahaas wuxuu ku dhex tuurayaa roogagii weynaa mid ka mid a roogagaas oo yaalay angal ka mid a meeshan lagu ciyaaro si marka uu ardayga labaad doonay inuu kubadda ciyaaro uu halkaas kala soo baxo kabaa kadibna uu ku ciyaaro kubadda. ardayda intooda badanna waxay ahaayeen qaar sidaas sameeya oo kabahooda way wada sheer garayn jireen. sababta ay halkaas u dhigayeen kabuhuna waxay ahayd khasnada alaabta lagu gurtay iskuulkaasi may ahayn qaar bilaasha oo lacag ayaa lagu karaysanayay khasnadahaas. sidaa darteed ardaydu waxay u arkeen in qaabkaas bilaashka ee roogaga lagu dhex ridanaya alaabtu inay uga wanaagsan tahay. Kendrick maalintaas wuxuu soo galay jiimkii oo wuxuu ahaa mid ku wareersan meesha ay yaalaan kabihiisii ee saaxiibkii uu dhigay. sababtoo ah roogaga halkaas yaalay waxay ahaayeen qaar badan, waxna waa laga bedelay oo waa la kala warwareejiyey roogaga meel uu saaxiibkii dhigayna wuu waayey kabihii. sidaa darteed wuxuu ku qasbanaa inuu dusha ka fuulo mid kasta oo roogagaas ka mid a si uu u hubiyo ka ay ku jiraan kabihiisii. dushoodii ayuuna soo fuulay roogagaas oo mid mid ayuu baadhay ilaa ugu dambeyn uu ka dhex helay mid ka mid a oo roogagaas ka mid a. roogaasina wuxuu ahaa mid ku dhegsanaa gidaarka, wuxuuna awooday inuu soo bixiyo kabiya halkaas ku jiray mid ka mid a oo kabtaas uu soo bixiyey waxaa laga dul helay meeshaas dusheedii markii dambe. laakiin kabtii labaad ayaa ka fogaatay oo uu soo qaban kari waayey sababtoo ah kabtaasi waxay taalay meesha ugu hoosaysa. dhararka roogaas ee kabta ku jirtayna muu gaabnayn oo dharar ahaan wuu dheeraa, wuxuuna ahaa meelahaas 1.8 mitir. sidoo kalena muu awoodin inuu dhinac u jeediyo roogan oo hoostiisa uu ka soo saarta kabaha oo gidaarka iyo roogaga kale ayaa ka hayay meel kasta. Kendrick wuxuu soo geliyey gacantiisii meeshii si uu halkaas uga soo bixista kabihiisa. ballaadhka meeshaas tilooshe ee rooga dhexdiisa ahaydna waxay heshee 30 sentimitir meelahaas hoose una ugu dhaadhacay meeshii oo kabtii uu gaadhay. laakiin markii uu isdahay dib u soo noqo culayskii jidhkiisa ayaa ka awood batay oo hoose ugu dhacay meeshii wuuna ku dhex xanimay. wuxuuna awoodi waayey sidoo kale inuu ka soo baxo oo dib uga soo baxo meeshan maadaama uu fooraray oo gacmihiisii iyo jidhkiisiiba ay gudaha hoos ugu jireen. waqtigaasna wuu qayliyey oo inta awooddiisii oo dhan wuu qayliyey isagoo isku dayay in la maqlo oo dadka agtiisa marmaraya ay maqlaan. laakiin roogaas uu ku dhex jira ayaa codkiisii qabtay oo xanibay wuuna soo dhaafi kari waayey codkii meeshaas. iyagoo haddana ahaa qaar badan oo ka mid a ardaydii waqtigaas qaar meesha ku ciyaaraya oo kubadda basketboolsha ciyaaraya. laakiin buuqii meeshaas ka jiray iyo orodkii ardayda iyo codkoodii iyo qayladoodii waxyaabahaas oo dhan ayaa codkiisii baabiiyey oo may jirin cid maqashay Kendrick, manay jirin cid ku baraarugtay qayladiisii gebi ahaanba. waxaana jiray 3 arday meelahaas oo arkayay Kendrick markii uu korayay meeshaas ee uu islahaa kabaa kala soo bax,
kuwaasina kamay fikirinba oo niyadda may soo gashan in Kendrick uu halkaas ku dhex dhacay uu ku dhex xanimay, waxayna islahaayeen kabihiisa ay uu kasoo qaatay oo uu kasoo tegay meeshaas. cid kale oo aragtay ama qayladiisii uu qaylinayay ku baraarugtayna may jirin. Kendrickna hoose ugu sii dhacay meeshii oo jidhkiisii iyo lugihiisiiba ay qarsoomeen, sababtoo meeshaas dalooshe uu ku dhex dhacay way dheerayd oo way ka dheerayd isaga wayna qarinaysay jidhkiisa oo dhan. intaa kadib maalintaas waxaa dhammaaday xiisadihii iskuulka, dhammaan ardaydiina way ka rawaxeen iskuulkii oo mid kastaaba wuxuu aaday gurigoodii. ardaydii kuwii jiimka joogay ee tababarka wadayna iyo kuwii ku ag ciyaarayay kubadda Kendrick muu jirin qof ogaaday ama dareemay inuu jiro qof agtooda ku dhibaatoonaya oo ku nafbaxaya agtooda. waxaa loo malaynayaa ama ay u badan tahay oo ay soo sheegeen dhakhaatiirtii in wiilkaasi uu dhintay daqiiqada kooban kadib markii uu kusoo dhacay meeshaas, sababtoo baadhitaankii lagu sameeyey jidhkiisa waxaa lagu caddeeyey in Kendrick uu dhintay ka hor intaanay saacaddu gaadhin 2 duhurnimo. kamarooyinkii ku yaalay iskuulkaas ee duubay wiilkaasina waxay caddeeyeen oo laga arkayay in Kendrick uu soo galay jiimkaas saacaddu markay ahayd 1:28 daqiiqo, waxaana u badan tahay inuu dhintay waqti kooban kadib markii uu meeshaas kale uu ku dhex dhacay, sababtoo meeshaas hoose waa meel aanay hawo iyo oksijiinba ka dhex jirin. qofkuna haddii uu oksijiin waayo dabcan isla markiiba uu dhimanayaa oo ma awoodayo inuu waqti dheer sii noolaado. markii la helay meydkii wiilkaas waxaa jirtay suurtagalnimo aad u yar oo looga shakiyi karay in Kendrick la dilay ama halkaas cidi ay ku riday markii ay dishay kadib si ay ugu qariyaan meydkiisa oo dadku aanay u arag. waxaa jiray wax gaadhiyo 7 kamaradood oo ku yaalay jiimkaas oo duubay wax kasta oo dhacay. kamaradii ku beegnayd ama ku jeeday dhinaca ay yaaleen roogagaasina waxay ahayd kamaradan si fiican wax looga arkeen oo shucaca uu ku jiro, sababtoo kamaradaas waxaa ku dhacday kubadda ay halkaas ku ciyaarayeen ardaydu oo shucac ayaa galay, iskuulkuna muu hagaajinba oo uu iska daayey. sidaa darteedna kamarada dhexdeedii si fiican loogama arkayn markii uu meeshaas sii galay wiilkaasi. kiiskanna xogta laga soo ururiyay aaday u kooban tahay aadayna u yar tahay oo ciidankii ma awoodin inay helaan macluumaad intaas ka badan. waxaa meesha ka cad in wiilkaasi uu neefqabad u dhintay, ha ahaata sababta uu dhintay in marka uu meeshaas ku dhacay ee neeftii qabatay oo uu neefsan kari waayey meeshaasna uu ku dhex ciijismay, ama sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ha ahaata inuu qof ciijiyey wiilkaas oo uu meeshan ku dhex riday kadibna. dabcan aragtidan dambe ee dadka qaar ay aaminsanayeenna may jirin wax caddaynaya gebi ahaanba oo kamarooyinkii iskuulka oo dhan waa laga baadhay wax shaki leh oo looga shakiyi kara in wiilkaasi cidi dishay, waana laga waayey gebi ahaanba. manuu jirin hal qofna ha ahaada ardaydii iskuulka dhigan jirta ama macallimiintii oo ka daba aaday wiilkii meeshaas ay roogagu yaaleen markii Kendrick uu meeshaas aaday uu fuulay roogagaas dushooda. xitaa wiilkaasi haddii la is odhan lahaaba cid ayaa dishay, may jirin cid uu khilaaf iyo mashaakil kala dhexeeyey Kendrick, qofkaasoo la is odhan kara wuu dilayaa uu dhibaataynayaa wiilkaas. waxaa la baadhay waxyaabo badan oo ciidankii waxay u yeedheen arday tiro badan oo ay saaxiib ahaayeen wiilkaas dhintay. awoodoodii oo dhanna waxba kamay hagaran oo wax kastoo ay baadhi karayeen way baadheen. xitaa markii kiiska la xidhay kadib dib ayaa loo furay kiiskan oo waxaa jiray ururo badan oo kala duwan kuwaasoo mar labaad furay kiiskii oo baadhitaana ku sameeyey, wayna ka yara shakisanaayeen inay wax ka khaldan jiraan kiiskan. waxaana la furay jidhkii meydkii Kendrick 3 jeer oo kala duwan si loo hubiyo oo loo xaqiijiyay inaanay cidina dilin wiilkaas ama dembi dil aanay hayn dhimashadiisu. baadhitaanadaas dheer ee lagu sameeyey kadibna iyo qaliimadaas lagu sameeyey jidhkii wiilka waxaa lagu soo gabagabeeyey arrinkii oo lagu soo xidhay kiiskii in waxa maalintaas dhacay uu yahay shil oo aanu ahayn dembi dila. arrinkaasina sikadiisa ay u dhacay oo wiilkaasi uu halkaas ugu dhex xanimay ilaa uu ka nafbaxay uu ku dhex dhintay meeshaas dhexdeeda. manay jirin xitaa suurtagalnimo gaadhaysa 1% oo sheegaysa ama looga shakiyi kara in wiilkii Kendrick uu la kulmay dil. laakiin ilaa waqtigan ay joogno oo ah sanadkan 2024 waxaa jira dad ka mid ah dadkii u dhadhawaa wiilkaasi ehelkiisa ahaa oo weliba ay ka mid tahay hooyadii lafteeda, kuwaasoo ku adkaysanaya oo aaminsan in waxa ku dhacay wiilkoodu uu yahay dil loo geystay. manay awoodin inay qirtaan waxa xun ee dhacay maalintaas, ama waxaan odhan karnaa waxay rumaysan laayihiinba in wiilkooda ay jeclaayeen uga tegay qaabkaas foosha xun ee cabsida leh. waxaana jira sawiro laga qaaday wiilkaas lagu magacaabo Kendrick markii meydkiisii la soo saaray ee laga soo saaray meeshaas. sawiradaasina dabcan waa sawiro qof meeda oo dhintay oo lama soo dhigi karo meeshan, shirkadda YouTube-kuna ma ogola. laakiin haddii aad ku baadho magaca wiilkaas waad heli kartaa sawiradiisa laga qaaday markii la soo saaray kadib.
ugu dambeynna waxaan rabaa daawadayaal inaan idinka su'aal idin weydiiyo su'aashaas oo ku saabsan qisadan taasoo aan doonaya inaad iigu soo qortaan jawaabihiina dhanka hoose ee kommentiga. maxay tahay daawada aragtidaada ku wajahan dhimashada wiilkaas lagu magacaabo Kendrick? ma laga yaabaa in waxa dhacay uu yahay dil wiilkaas loo geystay sida ay aaminsan yihiin ehelkiisa qaar ka mid ah, mise waa shil dhacay oo aanay cidina ka dambayn keliyana uu sababay ficilka aan feejignaanta lahayn ee uu ku kacay wiilkaasi markii uu islahaa kabahaaga meeshaas kala soo bax? igula wadaag daawada dhanka hoose ee kommentiga aragtidaada. A tragic accident. We want justice! We want justice! And it was no foul play. He had no bruises, no nothing. Did you believe that? No, And you still don't believe it? no, I don't. No matter who you are, how much money your parents have. intaas uuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe inoo saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub. waad mahadsan tahay.